intaan ra'iisul wasaaraha COVID-19 ku markuu bilowday meeshii aan ka bilownay waxaan ka bilownay meel aad u hooseysa iyadoon isbitaal jirin iyadoon qalab jirin iyadoon maamul jirin habeen ilaahay keeno ayaan guddigaan isku abaabulay oo ka socday bulshada rayidka dhakhaatiirta culimada ganacsatada dawladda ayaan ka shaqeyn jirnay ugu dambeyntii waxaan soo gaarnay alxamdulillah inaan ku guuleysano in aan isbitaal hirgelino arrimahaas la xiriira qalab iyo nidaamna waxaas aan samayno isbitaal banaadir iyo martiiniba waxaan la wareegnay intaan ra'iisul wasaare ahaa waxaan kula wareegnay runtii si adag waayo culeysyo badan ayaa ka naga qabsaday waxay noqon in anigu gacanteeda la soo galo covid-ku intaanu bilaaban ka hor ayaan dejiyay nidaam aan ku shaqeynaynay oo ah inaan bulshada Soomaaliyeed oo dhan isu keeno culimada aqoon-yahanada ay dhakhaatiirtu ugu horeeyaan ganacsatada bulshada rayidka gabdhaha haweenka Soomaaliyeed ciidanka xafiiska ra'iisul wasaaraha wasaaradaha dalka wasaaradaha caafimaadka dawlad goboleedyada beesha caalamka dhakhaatiir Soomaaliyeed oo dalka dibadiisa kala joogta waxay noo suurta gelisay marka emergency response-ga aan bilownay in nidaam hufan si degdeg ah u sameysmo alxamdulillah dad badan oo Soomaaliyeed ka faa'iiday shaqadaasna waxay ahayd shaqo aan ugu talagalnay ummadda Soomaaliyeed inaan ku badbaadino waana mas'uuliyad saarneyd xafiiska ra'iisul wasaaraha wiilashii iyo gabdhihii xafiiska ra'iisul wasaaraha ka shaqeynayay kulligood waxay ahayn dadku ugu horeeyay covid-ku ku dhacay sababtoo ah first responders kay noqdeen meesha